الله magacayga waa xasan liido maxamed say odayaasha iga horeeyay u sheegayeenba waa gudoomiyaha shirkadda Kubac waxaan runtii rabaa dhammaan inaan u mahadceliyo ummadda Soomaaliyeed khaasatan community-ga meeshaan isugu yimid ee maanta xoogooda iyo maalkooda iyo naftoodaba diyaar u ah inay wax qabsadaan taasaana keentay inaan maanta ka qayb qaato oo wixii karaankayga iyo xoogayga iyo waqtigayga soo geliyo runtii waana wax lagu farxo inay dad wax qabsadaan marka waxaan leeyahay cid wax idin qabanaysa ma jirto ilaahay ka sokow weena adinku wax qabsataan taasaana keenaysa inay maxaan ku raadin idinku soo dhiirado oo dadaalkaas wanaagsan markaad qabataan ay cid walba idin garab istaagto dhalinyarada uqaasha gabdhaha dhammaan inta u kacday culimada waxaan leeyahay ajri xasanad Allah idinka siiyo waxaan rajaynaynaa wadadan oo laami inaan arki doono insha Allah hadduu ilaahay qadaro waana qaban karnaa marka waxaan leeyahay inta dibadda iga fiirsanaysa iyo inta kale ee ilaahay wax siiyeyna ee ummadda Soomaaliyeed meeshan qabiil looma dhisaayo waa wadana ummada isticmaalaysa uguma horeyso markii ugu horeeyay ma ahan saad la socotiin Muqdisho hadda wada liira Kubac roogda jirto 1 kilomitir oo laami ah oo hadda soo afjarnay maqaan muddo 7 cisho ka soo wareegtay sidoo kale bari ummadda Soomaaliyeed oo iyaga wax qabsanaysa wixii karaankayna waa ka qabanay haday noqon lahayd sida wara iyo masaajidada wixii la qabanay insha Allah tanna waa kuwin bay la mid tahay marka waxaan leeyahay ilaahay khayr idin siiyo dalkiina sii wado aad iyo aad aan ugu faraxsanahay arrintaas. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.